السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى waqtigiina ha barakeeyo. Run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan bal idinla wadaago book aan aad iyo aad idiin anfacaya, waana buugga talooyinka nolosha. Waa book runtii wax badan idin tari doona. Jacfar Sultan Yusuf aa turjumay. Waa book aad iyo aad akhriskana aad ku bilaabi kartaan, talooyin waxtar lana aad kala bixi kartaan. waxaan jeclahay inaan dhowr talo oo buuggan ku saabsan aan idinla wadaago. Talada koowaad wuxuu leeyahay maalin kasta 3 ruux bogaadi, yacni inaad qof u sheegto wanaagyadiisa iyo waxa uu ku fiican yahay, ood ku dhiirigeliso, aad qof at least qofka dhiirigelin siiso waxqabadyada noloshiisa wax weynay taraysaa. hadal wanaagsan ku tiraahdo. Ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waquluu linnaasi xusnaa, dadka waxaad ku tirahdaan hadalkiisa ugu wanaagsan, yacni dadka hadalka u xula. talada labaad waxa weeyaan salaanta si diiran dadka u gacan qaad. dadka marka salaamayso inuu siro jilicsan oo ha u salaamina si adagoo ku jirto firfircooni iyo kalgacal iyo gacaltooyo ku jirto u salaam qofka. taladaas waa dhowrka talo aan ka highlight garaystay. kolley talooyin fara badan oo waxaa jira idinkana ka anfici doona, de qof baa waxba anfacayso ma. runtii talada anigu aan kalaan maxaa hayday aan kala baxay waxa weeyaan talada 20aad ee odhanaysa naftaada iyo dadka kaleba saamax.